السلام عليكم صاحبي الكسر وهذا 5 دقائق مقالكم ما توحوا كسب سيهي وذي دعالي ما أفري دونا إسلانتا اللي يراهضو أمرا وابا إسلانتا وقبوئي صاحبي المركة هوري انت نقلين فضلا هلكن سبسكرايب صار waxaan soo gelinaa muuqaalo ku saabsan musalsalada Soomaalida iyo waliba kuwa kale oo xiiso leh si ku soo gaaraan fadlan subscribe saar wada ducaale waxa uu yahay ninka kaliya ee imika qoyska sida weyn u raadinaya gabadha la yiraahdo Habboon ee goor hore ba luntay wada ducaale waxa uu muuqdaa mid aan ka daalin raadinta gabadha Habboon haddaba wada ducaale xalqadii ugu dambeysay waxa uu inoo sheegay ama uu bixiyay sir aad weyn taasi oo tibaaxaysay isla markaasina meesha keentay su'aasha ah wada ducaale ugu dambeynta ma uu furi doonaa islaanta la yiraahdo amran tan iyo bilowgii musalsalkaba waxay u muuqatay in wada ducaale iyo amran uu ka dhaxeeyo khilaaf weyn kaasi oo inta badan ku saleysnaa arrimaha guriga la xiriira amran waxay u muuqataa inay tahay amaba ay tahay qof aad u qaylo badan isla markaasina aad u dhibi jirtay Habboon halka wada ducaale uu yahay mid aad ugu naxariista isla markaasina aad ugu dabacsan Habboon haddaba laba arrimood ayay taas noqon kartaa marka hore waa in Habboon soo laabato markaasna ay amran diido in ay guriga joogto taasina ay sababto in wada ducaale uu amran sidaas ku furo oo sidaas ku kala tagaan tan labaadna waxay noqon kartaa in wada ducaale marka uu ka quusto raadinta Habboon uu si iskiisa u go'aansado inuu furo amran taasi oo sababaysa in gurigu dudumo isla markaasina Jamaal nafkiisu uu guriga ka tagi doono ugu dambeynta guriga oo burburo waxa ay fogeynaysaa rajadii ahayd in Habboon ay soo laabato taasi waxay sababaysaa in Habboon ay ugu dambeyntii maqasho amaba uu soo gaaro wacaalka iyo warka in guriga lagu kala tagay markaas kadibna maba yaaleen waxay guriga ugu soo laabato oo maxay soo doontaa islaantii oo la furay ay dib ugu soo laabataa soo dhigeeda miran meeso arrimahaas waxay noqon doonaan arrimo aynu ku falanqayn doono xalqadaheena soo socda ee ku saabsan musalsalka Habboon xaaladdu docda ay u jeesan doonto hadba waxa aynu ku falanqayn doonaa halkan fadlan subscribe saar si uu ku soo gaaro muuqaaladan mahadsanidin dhamaantiin